waxaa jirta waxyaabahan iminka la leeyahay hebel baa hebel la kulmay iyo hebel baa halkan la tegey war Somaliland mowqif bay adag bay iska taagtay bulshadeedu way ka tashatay masiirkeedana qof iyo laba wuxuu wax ka bedeli kara maaha dawladdii riyaale iyo kuwii ka horeeyeyba meel bay iskaga xidheen cidda qufulka ka jebisay ee ka ansixsatay baarlamaanka waa dawladdan kulmiye in lala hadlo Soomaali weyn gudiga dibadda iyo meel walba lagu hadlay meeshii la arko waynu ognahay ilaa 50 madax dhaqameed ayaa ka soo degay airportka Hargeysa oo dawladdu ay yeeratay oo halkan ay ku macsuumeen oo kula hadliyeen mowqifkooda waxba kama bedelay Somaliland waa dawlad madax bannaan waa dawlad aynu qaadanay mowqifkeeda aynu isku wada raacnay yar iyo weyn dastuurku u codeeyey sida dawladaha jaarka ayay Somalilandna la mid tahay maanta ma aha wax lagu ololeyn karo hebel ayaa hebel been abuur la hadlay waxa la doonayaa dadka maanta xisbiyada amaba caalamka waynu la soconaa horumar baa la gaadhay xisbiyadu waxay ku ololeystaan war waddanka waxaanu ka qabanaynaa dhaqaalahan hagaajinaynaa waxaanu sameeynaynaa tacliintaanu xagga sidaa u sameeynaynaa caafimaad baanu ka shaqeynaa ayaa lagu ololeystaa oo ummadda lagu soo jiitaa laakiin ummadda laguma soo jiito hebel ayaa maanta hebel la kulmay ama is salaameen mashruucan imanka socda oo mashruuc aniga layla yimid oo rag madax dhaqameeda oo magac weyn ku leh Somaliland inta gurigeeyay ila yimaadeen ay yiraahdeen waxa doonto ayaanu ku siinaynaa xamar tag waxa tiraahdaa wadani baa soo diray media xamar ka hadal oo waxa tiraahdaa Soomaali weyn baanu doonaynaa wallahi waa layla yimid wallahi waa magac Ilaahay mashruucan waa mashruuc soo socday wax soconayana maaha hebel baa hebel la hadlay ee waxa leeyahay madaxda xisbiyada ha ku ololeystaan wax ay ummadda ku soo jiidan karaan ha ku ololeystaan waddanka waxaanu ka isbedel baanu ku sameeynaynaa waxbaanu ka qabanna laakiin maanta looguma fadhiyo madaxdii wadani ayaa Nairobi hebel kula hadashay wartaas wax soconaya maaha wax ummadda ayaa la jahwareerin aan wax leh waddanka la badbaadiyo hal laga daayo wareerkan iyo jahwareerkan iyo bulshada la iska dhex keenayo iyo ololahan ku salaysan qabiilka war haddii qabiilku ay istilaan oo Somaliland qabiil la isku dilo cidda xukumayaan waayo cidda ay leeyihiin waanu xukuminaa oo waanu talinina oo talaanu madaxweynayaal baan ku noqonaa waayo haddii bulshada la isku diro waxay wax ku xukumi karaan bulshada oo mida bulshada oo walaalaa Somaliland oo mid meel ka soo wada jeeda oo hadaf mida wadata ayaa kii kursiga fuulaaba ku doonaa noqdo wax ku xukumi karaa laakiin hal iska daayo propagandahan iyo qabiilkan iyo waxaan moogtay maanta Somaliland hore aynu lahaan jireen ku soo kordhay iyo hebel la kordhay waanu cadeynaynaa cidii noo timid ee nagu tiri gurigaaga inta noogu yimaadeen waxa doontaa